waxaan hadda ugu yeeraynaa insha Allah Dr. Daahir Salaad Maxamed oo ka hadli doona wacyigelinta hooyada uurka leh iyo u diyaar garowga dhalmada falyatafadal mashkuuran. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الله أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مركور أمهد علنا الله سبحانه وتعالى جل جلاله وحان مهد خاص علنا يا ماملك أما مساجك مؤسسة رجع أساسي جودجة يعني مرتقات إيران كنت ماشان وحا يقدم بيسي أفر سنة كور تقريبا مركل بالله بين وحان إمد إلا اللي سنة كور من 5 سنة كور مر أيضا بالله موضوعي مركي أنا أنت جودجة وأمهد علنا سوء sababtoo wax kastaba raga bilaabo waqtina ku bixiyo insha Allah ilaahay waxa ka rajeeyaan inuu fududeeyo juhdiga ama dadaalka ay ugu jiraan inay wax u qabtaan xaafadan Kirkood ama dadkana waxay ku nool insha Allah intaan la socdo jazakumullahu khayr. waxaan jeclaan lahaa marka aniga hadda waxa laga hadlay mowduuc aad noo qusay oo qaadka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay oo waliba aad u taabanayo qoyska socialina ana noqosay iyo wadamada kale darsana sida Yemen Kenya oo kale into mujtamacaadka darskana la marka wadaadadu xilli khayr Allah si xilli waxay u sheegaan mowduuc aad muhiim ah aan ka hadli doono aadna u baahan in dad badan loo wacyi geliyo u baahan awareness ama wacyi gelin anigu wuxuu ku saabsan yahay arintu oo aad la socotaan in badan in socially dhibaatanaga haysto dadkanaga inay fahmaan markay hooyooyinka ama blahanaga dhalmada ama xilliga ay u kala yihiin ay wajahaan ama ay u bilaabato insha Allah oo waqti u baahan juhdi badan iyo in musaacado iyo aqoon loo leeyahay wax la marayo qof bini'aadanka waad ogtihiin Allah subhanahu wa ta'ala aydiisu kii wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha ووضعته كرها كل علماء خير الله سيوي كل واحد بدهم يفسر رأيه كان يكون في تفسير ببيان غاية أما ولا جدد أنا حلو حيث هاي وليس أما دبات هذا هو مريكرتو حلقة أي حملقة أما أورك هذا إيوه الماذا وهذا سنتي ولا ليال ودن كناجي مركل الجوجي ودن كان وعي وكل دوية حالات nolosha iyo mujtamaca la noolnahay iyo habka dhalmada ee dumarku dhali jireen iyo qaabkii isma leh marka arintaas ayaan marka waxaan iska jeclaysay maadaama ay yiraahdeen wacyi gelin waa maanta oo arintaas jirto mu'tamarka inaan ka hadlo xilliga ay hooyadu xamliga wada ama ay uurka leedahay sida Allah subhanahu wa ta'ala quraan ku sheegay waxyaalaha looga baahan yahay oo daruuriga oo ما أها هو يد كلي sidoo kale into feeg ama zawjka looga baahan yahay inuu qoyskiisa ka caawiyo hadii aysan dhicina ay keeni karto dhibaato badan oo ku timaado inta badan ognahay cesareanka ama qalliinka waxyaalaha Soomaalida ku keeno marka insha Allah waxaan guud gali doonaa problemyada iyo sidee u kala horeeyaan iyo habka taaka loogu sameyn kara ama إن شاء الله الله سبحانه وتعالى أيضا بعونه يستوى الجرجارسنا إلهي الثلاثة صارنا حبك اللغة تحضر لهاي وقتها وعي كنا ودنا كان وحد أكسون تهين حديثنا بحوآي كل علماء إلى فارس إن شاء الله المسلم القوي
khayr wa ahab min allahi min almuslim daciif qofka inuu weak yahay ama liito iimaanan ama jismiyan xitaa qofka muslimka inuu dhisan yahay caafimaadkiisa ama fitnesskiisa ay muhiim jiddan waaye mas-uuliyadana ogtihiin gabadh markay ur yeelato qallamaa qof hoos u dhigta waxyaalaha ay u baahan tahay ama vitaminad ha ahaato ama ha ahaato cuntooyinka khaaska oo qofka bini aadanka ama ilmaha wax u tari karo waxaad ogtihiin hooyadu markay urka leedahay sida commonka ama la og yahay canugu wuxuu ku nool yahay wixii hooyada isticmaasho ama ay mataqaana ilaahay nafaqa ahaan ayada isticmaasho haddii ay hooyada tahay qof cuntada ay cunayso ama dietka balanced diet ama waxaan Soomaaliya ku niraahdo mataqaana diet dheellitiran cunto dheellitiran hooyadu ay isticmaalayso ilaahayna tala saarto waxay u baahan tahay 190 in uu canuga ay dhali doonto insha Allah uu noqdo canug xayi ah oo mataqaana ayadana aysan ku rafaadin xilligii dhalmada marka initially waxaan ka bilaabayaa ijtimaaciyan lack of eating balanced diet ama cunid la'aanta hooyadu aysan cunin markay ximliga qaado ama ay bilow tahay diet sax ah waxay keentaa inay noqoto anemic dhiig la'aan ay timaado dhiig la'aanta markay timaadana waxaan filayaa waxyaalo badan la soo darsay hooyada difaac ma difaac ma yeelanayso oo infection iska difaacdo waxay susceptible u tahay infection ay qaado waxay yani dhib waxa ku noqon doona hadhowda qof quwad leh markay hooyadu fool u soo timaado ama ay u diyaar garoobayso qofkii xogaa jismiga dhisan yahay oo ama cuntada ay fiicnado ayaa fool ka bixi karo waxay noqonaysaa qofkii inay markii foosha timaado uu tabar dhigo wala carar saala hore miiska laga saaro marka waxyaalaha looga baahan yahay hooyadu markii ay isku ogaato inay caloosheeda wax galaan biqudrati jabbaar waa in ay isticmaasho right diet sida fruitska vegetables-ka minerals-ka fiberska inta wadi sheegay macnaha cuntada kulli waad ogsoontihiin fruits waa taqaan sida tufaaxa mooska maangaha wixii lamid kulli qofka intuu awoodi karo khudaarta cagaaranna way fiican spinach-ka iyo wixii lamid ah qofka inuu isticmaalo waa daruuri waa qasab sababtoo iron-kii hooyada markii uu leedahay iron keeda waa muhiim jiddan ama birteeda jirkeeda ku jira waa muhiim jiddan in bir inaf ay leedahay haddii aysan yeelan canuga ay gaaraysaa canugu waxay u baahan tahay in dhibaato asaga ay samayso ku dhashaba ama uu ku dhashaba problemka haddii hooyadu sida ayku ku yiri waxaas wax la heli kara cuntadan sida vegetables-ka ama minerals-ka ama fiber-ka kale inta taqaana arinta aan noqdadan ko hadlay oo lack of balanced eating balance waxay keeni kartaa anemic wuxuu keeni karaa oo la soo darsi karaa low blood pressure infection low defense waana probability arrimaha keeno hooyadu inta waqtiga ay urka leedahay in xanuun ku bilowdo oo qofkiiba 9 bilood gudahooda xilliga uu socdo ilaa ay late stage gaarto ama late trimester marka la gaaro canuga xitaa uu weynaado inay sabab awood u leeyahay oo dhaqaaqa xitaa u dhibay waa factor ugu weyn ijtimaaciyan annaga Soomaalida marka raashinka badan aan ognahay bariis baasto marka uu bato canjeero mataqaana muufee haddii qofka helo waxa yar lagu cunayo khalaas fruit male vegetable male fiber male khala intii markuu qofku cuno dhibaatada kale hooyada la kulanta waxa kamid ah oo loo baahan yahay in laga taxadaro ikhwani constipation cuntadan haddii qofku uu cuno waayo qofka hooyada waxay qaris constipation haddii imaadana hadhow ma jiran karto qofka ilma ma riixi karto 9 bilood marka qofku constipation hay hal habeen aan mahal bil inay mataqaana constipation loo soo waa shay qariib marka wax loo baahan yahay in mujtamac ahaan dadka Soomaalida ee ku nool UK khusuusan ma aha dumarka kaliya aabahi naftiisa xitaa inuu ka taxadaro oo waxaan asaga suuqa ka kale hooyadina kulli sida suitable ama ayada wanaagsan ee u isticmaasho wixii inta ka karto marka arinta ugu badan ee ugu sababto oo yani inta urka leedahay hooyada hadaysan helin diet sax ah waxay keenaysaa anemic constipation factor badan low blood pressure arrimahaas oo qofka keeni karo inuusan sida saxda ah ama dhalmadii uu awoodi waayaba mataqaana keentana in cesarean lala aado wax la mid ah
noqdada labaad oo annaga bulsho ahaan haddan haysto aad kan u dhacdo waxaa ka mid ah inaysan hooyadii luqadii aqoonin oo luqadii ingiriiska aysan ku hadli karin ninkii qaba inuu isku hadli karin labadaba lacalla waxaa dhici karta aniga gobollada mar joogay gobolladii dad in loo bedelo oo ay ku nool yihiin halkaas gabadhii meel cillo hostel ku jirto qof kale uusan la soconin luqadina aysan aqoonin qof tarjuman aysan haysanin dhakhtarkay tagtay qof tarjuma ma leh community ma leh organize macnaha wixii organize garayso marka waxaa imaanayso isfaham darro dhakhtarkii iyo ayada iyo nurskiiba keenay kartana inay khatar gasho xilliga uurka leedahay oo macnaha ama baaris sax aysan helin ama waxay tahay xilliga dhalmada haddii la geeyo mataqaana istaalka qof tarjumaysan haysan mataqaana waxyaalaha ugu badan problemka oo ijtimaaci aan u dhaco laakiin ka baxsan cuntada iyo waxyaalaha lamid laakiin balse keeni karo stress oo qofkii markuu istaalka tago haddii qofna ula soo luqadna uu aqoon qofkii anxiety stress waxay keenaysaa dhiiggeeda inuu kaco horey laga qoro waana mataqaana arrimo kulay socially anaga nagula baahan yahay inaan manage garayno sida masaajidna u organize garaynay ama aan isu abaabulnay loo abaabulo lagana warqabo hooyooyinkii mataqaana uurka lahay loona naxis way mudan tahay mataqaana kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uul an ra'aytihi xadiis nabiga kullay ninkii mas'uul ka ahay ay waajib ka saaray haddii asiga uu joogin dabcan waan ognahay mujtamacaad badan gabdho badan la socon dadka ahal u dhow markaas inuu gargaaro oo mataqaana muslim u gargaaro arrinta kale inta noqdo saddexaad oo aan aad ka noogu badan ijtimaaciyan diiniyan aan habboonayn oo dhibaato ugu badan mujtamaca arrintan kulligood waxay ka mid tahay separation for family economical reasons in hooyadii aabihii ay kala maqan yihiin magaalada ay joogaan oo noolya laakiin si subxaan allah walacalla haddii ay wada joogi lahaayeen oo wax sax ay sheegin lahaayeen ilaahay inuu ka deeqi lahaay macquul ay tahay ayna dhacdaba qofkii ilaahay tala saartay ilahay wax uma dhiman laakiin waa arrimaha dhaco in badana dhaqaatiir qaar ka mid oo aan kula kulistay ay ka sheekay yiraahdeen why you ladies are here where is the husband when you ask them where's the husband she will say I don't know yani isin large wadanka ku nool yahay halkan uu jooga community ahaan adinku dad maxaasinka in badan lagu weydiiyo yiraahdo gabadhan eeg foolanayso wax la socdo male ninkay markaan weydiinay mataqaana dabcan de wixii urka u leeyahay where's the husband ijtimaaciyan arrimo runtii aad iyo aad daman iyo diinanba wax hadda qof damiir loo qaadan kara aysan ahayn mataqaana aysan ahayn oo keeni karta marka haddii taas dhacdo for example hooyada leelmo joogaba fool ayaa qabatay gurigeeda joogtaa qof la socda ma jiro xaqiiqa waxa inta badan 99% qof inuu high blood dhiig ku koro ayadoo mir lahayn stack loo qaado ambulance inta la qaado wixii raba laga sameeyo waa dhibaatinka aan u baahanahay annaga inaan mujtamac ahaan arrintaas dadka aan uga digno walaalayaal waxaan gabdhaha ikhwaati fillah ama gabdhaha ama ragbaha aadane waxaad ogaataan qofki ilaahay tala saarto ilaah deeq وما يتقي الله يجعل له مخرجا هنا ilma hada abtiyaan waxay tiraahday ilma hada mataqaana adeer waxay ka carar iyo qofkii oo saala saaran ama yani dhiig korsay laga dhuuntay iyo umma lay ma shina lagu tabcay in aaqiran wax keenay adduun wax keenay xitaa adduunka rafad lagu tusay marka waxyaalaha diinana aan noo habboonayn ijtimaaciyan aan ku sugannahay aan noo habboonayn haddana khatarta oo ilaa hadda taagan loona baahan yahay dadka in laga wacyi geliyo taasna waxaan u dhaafay kulli culimada inay ka hadlaan in badan mataqaana sida qaad kula dirraan dadka laga dirra arrimahaas mataqaana aan habboonayn mataqaana ilaahay usraale ka ahayn noqdada afraad ee laga rabo hooyada waxay tahay in hooyadu looga baahan yahay inay exercise samayso tusaale oo waxa aad u sahlan macquul arrimaha qaar inaysan kari karin laakiin mid ugu sahlan ay tahay inay hooyada lugayso lagba maalintii nus saac ilaa 40 daqiiqo inay lugayso ilaa hal saac taas waxay u keenaysaa circulationkeeda inuu ka saacido macnaha wareegga dhiigga ama circulationkii inuu normal noqdo ayada inay daranto xitaa happens wadanka haddii guriga lagu xiran yahay problem ayuu leeyahay qofka qafla problem depression waa leeyahay qofka hadduu lugayo suuq u baxo lugayo waxay ka saacideen ayadii oo xoog leh oo caafimaadkeedii raashin inuu cunto kow
morally inuu qofkii u saacido oo qofka hawo soo qaato in ay ka fogaato yani kaligeed si u fadhiis in guri ay qofkii uu cudurro badan ay la soo darsaan sida qofka haddii uusan exercise samayn ama uusan soconin waxaa la soo darsi karo dhiigga oo kaco high blood pressure cholesterol xerow waxa la yiraahdo ama yani dufanka ku bato qofka diabetes macaanka ama sokorta joints pain lafa xanuun qofka haddii uu guriga ku fadhiyo maanta dhan shaax cadaysa qaraf kursiga hab xagga u wareeg musqusha tag soo laabo haddana wax yar macaan xulwaad kale cun fariiso kursigii 12 hours qof markuu guriga ku dhex jiro gabadha uurna ay leedahay meesha dhex fadhiso wax socod uusan jirin taas waxay keeni kartaa late stage-ka markii ay 6 bilood wixii ka dambeeyo blood pressure inuu kaco in la dajin waayo macnaha xeerowgeeda inuu bato ilaa qofku wuxuu cunayay hilib bariis baasto waxa la mid ah wax high fat oo badan yahay waxyaalaha anaga aan badanaa dadkana aysan aware ka weyn waxa kamid ah hooyadu markay certain ay gaarto ilaa 5 wixii ka dambeeyay inay u baahato iron badan iron kan waxa laga helaa red meat ka sida hilibka lo'da kale white meat ka kale waa fiican yahay fishka chickenka waxyaalaha la mid ah waa ogaroon yahay hilibkan laamka oo aad u cuntaan sidii mataqaana ilaahay xalkiisa og yahay waa haddaad fiirisaan laamka kaligiisa haddaad saarto oo aad waxba ku darin oo aad digsi biyo cad ku darto waxa xaqiiqo ah markuu bislaado kadib koob suba ka soo dhalanay meel ku yimid taqaan laakiin hilibka lo'da ku yaryahay soo red meat marka la hadlo ama fish and chicken labadaba chicken ka kulay marka la shiilo oo de oo mataqaana qaabkan uu sameeyay fries oo chicken ka يعني أنا ما كان ولا لها كسانتا مقار كرول عنا مقار كرول 100% وفولي فان ده واحد يعونن أد ويعونن تلتقيني تاسمع هيك أنت كوليسترول نو بروبلم تسلاك كوليسترول هي هاي بلاد بريشر بيقف بسرعة السروق إنه كل فترة بنتا وقفك هو يدي أيوب مستحيل ديك أما بقى وإكسكوس وقف لو اسمه يستنكر اللي هاي بلاد بريشر صار لقينا نيرس كوروي كارته ويفيرنيسا dhiiga cabiraysa waxa yar ku darsanaysa cilada high blood pressure ay hal la carro iskaalsho loo xiray isla markaa salaada lagu carraya waa in la gooyo xasuura kala qofka luqad badan inuu noqon kala socda ninka la socda inuu isnafsi awareness leeyahay laakiin hadii marka hore la soo taxadar oo qofkan exercise uu sameeyo high blood pressure waliba aan dadku waanaya inta ay gabadha uurka leedahay inay ku noqoto dhakhtarkeeda iyo midwife-ka waliba center ka qoran tahay blood pressure inay controlsho socod badan ay sameeyso si ay uga taxdirto waxaan high blood pressure cholesterolka diabetiska laf xanuun waxa keena basic oo qof guriga maanta ku jiro qorrax aan haysanin waa problem is lack of vitamin D waa kala doona insha Allah iyo sida common ka ahba wala madalay gabdhaha Allah iga ahaadaan overweight ama obese waxa la yiraahdo qolkiiba 9 waan ugu dhacdaa dumarkana ma aha arintu inaan aniga قبلها أنا جاي فينا أما أنا ليه منتقل ولا جيد منتقلنا هنا يقف لقدر وحيالها كانوا وحاكمة ده أنت ده هاي فات كه ولا عناية شاهن حدث ويقولوا لا راح بديو إكساس الآن دايت كبالانس أنا هم وحيالها أصلا سلكوا كان كرنا حلقة أورك لهذا هدي أنا لما أنا جكرين أو أنا معمول في عن زوج كذا أي سكتش إنه تاكل الغصة مني إن دواتو دي كذا نوكره diga oo high noqdo taasna ay kantin leeyahay aan kala gasif garay cesarean you have to go to the theater you don't have any other option marka dhaqaatiirta hadii jarada leefleeda bixiyaan blood pressure way ka hadlaan diabetes way ka hadlaan xilliga hooyada uurka leedahay talooyin badan ay ka bixiyaan iswiimana u diraan sooca ay yiraan lugeeya laakiin waxaan filayaa hablaha dumarka Soomaalida aad iyo aad kulay encouragement ama talaxuma xagga ahaato mintaqana sayga zawjka ahaato nacanugan hay guriga ku fadhiyo mintaqana soo socodka waxa ma aqaan halkaas iga fadhiyo canugan yarka baxsad waa abihi bana canugu ka carray inuu wax yar hooyo dadka waxay ku soo qabsanaa canugan yahay canugan iga ku aqaan halkaas la fadhiyo mintaqana waa naxariis daro iyo aad u badan mintaqana oo ereynta saga u jeedinaya marka dhaqaatiirta had iyo jeer la way ka hadlaan centerka qof oo ka qoran yahayna tala ay ka bixiyaan marka walaalayaalow waxa muhiim ah
aadna ku baraarugtaan lack of exercise ama ha ahaato inay socon weysa ahaato ama islamic centers jira oo meel ay dumarku dumaasho islaamiga jiro ama masaajidada qaar way leeyihiin xitaa waa lagu talagalay gym ay leeyihiin dumarka qaas lagu talagalay dabcan waa dareemi karo hooyada markay early pregnant tahay waxay la qarab sameyn kar laakiin waa socon kartaa unless dhakhtarka complication uu jiro caloosh markay 7 bilood ilaa 8 bilood ilaa ay hooyada ka dhasho 6 bilood ay gaarto Soomaali waxay haystaan caloosha ku fariistay caloosha weynaatay fariisa la leeyahay waa mid khatarta ugu badan hooyadu markay 5 bilood gaarto waxay ka dambeeyaba waxa qasab inay socoto si balfigi oo kala baxaan diyaar garowga kamid balfigi hooyada hadii aysan guriga ku dhex fadhiisan soconayn oo maanta isku dhex jirto hadhowdi markii 9 bilood la gaaro problem ay la kulmayso qofkii ma soconaynin exercise ma sameeynin يعني ما ترى isku dhex jiro fadhiyo ku jiray marka waa arinta khatarta keeni karto looga baahan yahay in laga taxadaro marka hooyadu ilaa ay ka dhasho maalinta ay macnaha ilmaha weynaadaan ilaa ay ka dhasho waa waajib muqaddas inay socoto oo aan habeenkii marka u yaraa saacad ilaa saac qofka intuu karo saacadii bar 2 saac kullay saygan waajib ay ku tahay zawjka inuu u gargaaro gacanta inta qofka qofkii soo socodkiin ka socodsiyo ama oo ay yaraa soo lugay aad u haboon tahay hadii kullay waxyaalaha ku talinayna insha Allah oo kullay dhaqaatiirta wadanka ka digay waxyaala noqdada shanaad oo badana annaga aanan tixgelinin waxa kamid ah tusaale in wax balaan u soo jiro dhaqaatiirta ay jiraan marka ay qofka uu uurku soo weynaado jiraan oo ilaa 30 week 34 la yimaado waxa ama midwife ay ku leeyihiin classes ay jira antenatal clinic dhalmada waxa laga kulmi karo u diyaar garowgeeda dad badan weydiin Soomaalida wax qoftaga waa qariib ma jiro wanaga dhaaf kule gaalkan aan ku xusheeyo ma naqaan annagu qol hadda ka hor habeena waxa aad famila naqaan kaas girka soo xuri niyo sharcan ku banaanto in la aado awareness ka mataqaana wuxuu ahay waxay ka hadlayaan waxyaalaha qaran adigu waxyaalaha qaar ka hadlayeen ay ka xishona danka maleey laakiin wuxuu yiri banaanta in la kul culimada la weydiiyaan laakiin waxaan idin sheegaa hadii gabadhii loo sheegay advice ah antenatal clinic waxyaalaha ay face gareyn doonto u diyaar garowgii ee khatarta ay leedahay sida diabetes-ka blood pressure-ka exercise-ka waxyaalaha loo baahan yahay waa muhiim jiddan inta laakiin dadku qaar opposite u shaqeeyo kule kuwan baas karta qabaan u tagi maayo waan runtii marka qaar waxa dhici karta in lagu soo diro qof advisor oo muslim marka waa wacyigelin kulay dadka in noqdada hadda ku dhawdo waxay tahay baas plan mala dadka naga dhakhtarka markii ay gaarto hooyada 8 bilood wuxuu leeyahay maxaad rabtaa bath center inaad ku dhasho oo meel dabaal amal suumin qofka hooyada loo diraa la dabaalanayso ay soconayso maanta dhan oo bath center ma isbitaalka lagu leeyahay ana kullay int according to my knowledge intaan ogahay aan u soo tagnay fursad ugu qaalisan waxa waaye hadii uu qofka helo hooyadu inay doorato bath center sababtoo ah number 1 bath center-ka wuxuu leeyahay swimming oo midwives ka joogan hooyada leeyahay ku dhex dabaalo dabaashana canubu hadii jiro isrogaya ama soo dhaweynaysa ana aad ugu saacidaysa ko waxa loo way socon kartaa way lugeynaysaa labo waxay kale ka saacidaysaa isbitaalka maternity-ga waa meel walaal amal mid halkaas ka qeynaysa halkaas mid kale la qeynaa nurse-ka waa ayaga dhan midwife-ka nin wali qof ordo ku jira waxay u badan tahay care-ka loogu talagalay bath center-ka qof marka uu helo uu heli karo bath center marka uu tago inuu isbitaalka heli karin unless complications ay jiraan wax adag markii wax adag arkaan kuwan kulli bath center-ka isbitaalka ay soo diraan oo dhakhtar loo macna la leeyahay anagu arrimahaas ayaan ku aragnay ilaa wala isbitaalka aad oo ku fargareynayna marka waa waxyaalaha annaga advice aan dhakhtar loogu qaadanaynin midwife aan la weydiinaynin oo badan aan ugu dhaco markay final minute la gaarana isbitaalka lagu cararlay naag midwife ay qabsto xalay qasab ugu saartay saalada ama qasab leeyo qalay aan rifan marka hore waxa fiican dadka walaalaha dhakhtarkooda ama GP-gooda ama midwife ay ku qoran yihiin inay kala tashtaan ayay qorshahay rabaan ama plan-kooda kullay nuqdada lixaad oo muhiimka waxay tahay waxaad ogsoon tihiin dumarka naga ilaahay waajib wuxuu ka dhigay xijaab arrintan waxay soo galaysaa lack of vitamin D dhulka aan ku noolnahay waa dhul kulul gabdhaha xijaab oo weyna wata waa aragteen gaalada banaankaas dhar dhigtaan banaanka inta soo dhar iska tuuro ka soo isku banaanka saxan nin iyo naag isku mid gabadha muslimadda ee marada ma tuuri karto ila waajib ilaahay wadi dhul
waxaa macquul ah xilligii uurka qaaday ama u badan ba inta aan ognahayba badanaan winter ku jirnaa winterka qorrax wala ma jiraan haddii summer la joogana hooyadii xijaabta ma tuuri karto waa arrin culayskeeda leh marka waxyaalaha looga baahan yahay habka looga gudbi karo lack of sunshine and no supplement of vitamin D oo waxyaalaha keeno hooyadu joints pain lafaha inay ka sheegato canuga hadduu hadhow dhashay xitaa oo vitamin D ga hooyada haddii zero tahay canugu waa zero ku talagala waana arrinta khatarta leh oo canuga meesha laga rabay inuu socdo waa fariisana fadhiid ku xiiraan Soomaalida noqon canug ma socon karo anugu waxaan u taagnahay canug 3 sano jirto oo socon weyso oo fadhiso jismi ahaan markaa fiirsan canugtu marka kor ka fiirso waa hilban tahay waxa isleedahay wax ka halaysan mal canugtu waa fadhisan waa fiirinay ayniida la geeyay dhigra la qaaday vitamin D ga la fiiri zero hooyada la bari zero annagu kulul ayaa ka nimid qorraxda qayb ay ka vitamin D kullu qofka shucaaca qorraxda qayb ay ka meeshan ma leh hooyada marka supplement ama GBH waxay bixiyaan daawo yar oo qof ka saacid vitamin D boost uga dhisay ay canuga u badbaado qorraxdii oo jirin no supplement of vitamin D deficiency of vitamin D waxay keentay canugi oo aniga soo arkay taagnaay in canugu lugu saas kala noqdaan macnaha lugu kala dheeraadaan waxay yiraahdaan Soomaaliya canugaani mataqaana markii vitamin D ku yar qofkaasi qofka hogof uu leeyahay ama lugaha isku soo horjeeday leeyihiin ikhwani arrintaas waxa keenay waxa vitamin D ga zero hooyada hadii zero ee canugu waa zero canugu yaro sanad jirto ama 2 sano oo waxaan taagnay lugna halkaas jirto lugna halkaas jirto ilaa si daawo loo wado marka dambe canuga ay caadi noqotay lugaheeda caadi waxa keenay hooyada ayaa zero marka vitamin D ga dadku naga mujtamac ahaan anaga Soomaalida war cid og waa yar tahay hadii supplement oo ku siiyo dhakhtarka waa good oo way siiyaan light supplement marka hooyada vitamin D ga arkaan inay zero ay macnaha oo low yahay hadii jara waxay siman tablet ay siiyaan ay yiraahdaan hadhowdu marka dhashay kadib ayaan fit powerful daawo siin doona hadda siiqada si uu canugu u helo meesha ugu dhow laga heli kara marka oo anaga aad ku nagu sanad waxay tahay fish kan salmonka hadduu qofka cuno asaga ayaa enough resource u ah hooyada inuu vitamin D ay ka hesho jah lam half chicken ma taqaana ka soo qaado suuqa maanta dal vitamin D ma leh laga vitamin waa zero only waxaad ka helayso waa ma taqaana waxay ahaday oo waa un subag iyo wax la mid laakiin fishki qalla ma da Soomaali cuno ama xitaa vegetables-ki ama ayanku kala ama loogu talagalay borshan ahaan inuu qof cuno waa yar yahay bariisiro ay gabadha qaatay ama baasir ay jagsisa ilmihi yara ku soo yaacay khalaas waxa suuragal ah wax biir ay qaato aysan waxda ma taaban ma saaciis marka qofka marka hooyada in hadhowda canugi caafimaad qabo ayadoo xoog leh oo ka bixi karto inay macnaha foosh xanuun ay leedahay kurha sida Ilaahay Quraan ku sheegayba culaysna waa leedahay xilliga oo mid taqaan hooyada urka leedahay culays badan ay leedahay hooyada marka haday weak ahead vitaminaadki ama calciumkeed oo low yahay ama vitamin D oo low yahay ama diabetes oo qarsan yahay ilaa waxa sokorta la iska daldalaa xalwadan walacan ahay xalwo ikeen ma taqaana muxuu ahay hidro taran sarac aan taga ma taqaana totrama xalwo doona ama hidro ka doona xalwo ikeen ikhwani xalwada hadad ogtihiin waxay ka samaysantaa waa subag oo fat sokor ee wax kale loo qasam taqaana Allah subhanahu wa ta'ala xalka ogyahay ma taqaana ma aqan warkiilo waxay yiraahdaan ka colors oo qofka asirftiisa xitaa riska gelin karo hooyo uur laha la yiray waa walacay war xalwi keenay leeyahay ma taqaana kale xalwo lagu daldalay khalaas waxa suuragal ah by the time ay shamilooto inay diabetes ay taasna waxay keenaysaa in hooyadii 38 week markay gaartay la yiraahdo soo diyaar garow diabetes ay qabtaa oo lagu qalaa ama ogaada waxa dhacda marka qaar hooyooyinka qaar markay ur leeyihiin sugarkooda ayaa higher noqdo ayuu waxba isticmaal waxa dhici kara diabetic in sugarkooda commonly glucose-kooda oo higher noqdo marka qaar waxay yiraahdaan dhaqaatiirta waxay yiraahdaan waxyaalaha fat kale ka dhow iska yaray oo ma taqaana waxaad cuntaa less sugar waxyaalaha marka laga taxadaro noqdada toddobaad oo muhiimka oo aan jeclaan lahay dadku isku baraarugsaneen waxa kamid ah waxyaalaha sabo cesareanka ama qalliinka waxaad ogtiin walaalayaal
marka hooyada iskaanka ugu horreeya la saarayba waxay soo saareen waxa la yidhaha due date canuga madaxiisa ayaa circumcision la qiyaasaya intaasoo usbuuca taha la leeyahay kabacdi waxa la leeyahay due date-kaada waa xilligaas problemka jira waxay tahay haddii aad isku daydo inaad qanacdo due date-ka marka islamic calendar oo annaga aan tirsanno oo annaga oo aan leenahay iyo ayagu mal farq maxaa farqa u dhexeeya clash ma iska hor imaan karaan xaqiiqa waxa waa iska hor yimaadaan sababtoo ah ayagu laa farqa gabadha hadday macduur tahay haddaysan macduur ahayn waxba ma taqaanaa hawshooda waa wataan dhanka ma leh dhakhtarku markay u tagto marka wuxuu leeyahay marka waxaa suurtagal eh xilliga hooyada ay macduurka ahayd iyo xilliga ovulationka oo hooyada ay waxa suuragal 20 maalmood macnaa adiga usbuuc ba iska dhig inay taqaan iska macduurta ama wax la mid ama ovulationka xitaa diyaar garowga ahay ma tirnayaan ayaga waxay ka tirnayaan date macduurka uu noqday inta nadiif ka noqoto dan kama leh ayaga sababtoo ah ayaga xaajadooda nadiif ay noqoto hooyada ay nadiifiyay dan kama leh marka 20 casho waxaa jiro كو لقى سيرة كلية ما دايت كس مع ديك كود حلقة سمعنا ها أوكي ديو دايت كحلقة سمع ديو دايت كاستيميشن كأي سبب مركز صورة قال إيه كو يلا تنعشوا استيميشن الكجر ماشي أو مس كالكوليشن أي كأي سمعان سكة صداس من السنة هذا كده أدعين كنا أي متغير كلية ما اختار إنه وين وتدو أنا كالندر كمركز تبل سوق المحل هذا كالندر وكنا متغيرنا حلقة سكوا أدرت بروبلم تسلقه وأرن أباهن إلا كتحضروا أنا وكلي periodka ama sida waqtiga xaylka waa la tirsadaa iyo ovulationka dadku inta badan way og yihiin marka wrong due date-ka mararka qaar wuxuu sababaa in hooyada la yiraahdo 42 week maraysa lama arkin wax macquul ma aha ama 43 week maraysa soo xaro inta kama loo dul qaadan kare waa ina soo xaro sababtoo canuga we are concerned the baby canuga balasantii kan waa xagee ka wareegtay soo xaro ku qalayna waxa la yiraahdo mataqaana negotiation iyo wada hadal ma jiraan theater soo xaadiri waa dhibta waa todobada noqdo oo mujtamac ahaan annaga hadda wadankan ku sugannahay dadkuna aysan wax badan ogeen hadday og yihiin dad badan ay ka jiifaan dan kale ay ku leeyihiin mataqaana wax problem wala mataqaana insha Allah ilaahay tala saaro oo qof muslim ilaahay tala saaro laga maarmaan haddana waxa looga baahan yahay preparation iyo inuu sameeyo taxadar arrin kale ay jirto oo wadankan badana ay ka baaraan oo ah nuqdo sideed aan jeclaan lahaa inaan dadku ku baraarujiyo hooyadu markay 35 ilaa usbuuca 37 ay marayso waxay sameeyaan wax la yiraahdo screening of group B streptococcus waa bacterial infection ku keeni kara canuga meningitis madaxa intaqana meningitis inuu u dhinto marka canuga markuu dhasho hooyada badana inteeda badan lower genital tract of hooyada ayaa badana iyo common ku yahay marka hadii laga helo waxay sameeyaan hadda UK kalanto screen ay sameeyaan last week star campaign ka shaqeynay hooyo ayaa laga helay 35 week ahead isla markaa antibiotic la gaaran oo macnaha cudurrada hooyada marka uu kaleeda ku imaan karo antibiotic la siinaa si canuga lagu badbaadiyo insha Allah ilaahay uu saro oo macnaha u sakhiro lagu badbaadiyo marka intaasi waa talada iyo tusaaleynta looga baahan yahay hooyada muslimada xilliga diyaar garowga waxaad ogtiin oo jeclaan lahay inaan si kooban uga hadlo dadkanagan in badan ku jirto oo vabi ay qabaan ah induction waxa la yiraahdo ama taqaana foosha artificial ka qofka lagu qasbayo yey waajib ku yaa foosha marka ay dhaqaatiirta arkaan leeyihiin waa lagu qalayaa ama waa lagu foolinayaa way kala tahay ogaada cesareanka oo qofka la qalayo iyo qofka in la fooliyo oo jal lagu shubo ama hormones sida oxytocin oo kale la siiyo waa qofma sidees ku dhici kartaa inta badan hoos ay ku soo joogi doonaan insha Allah hooyada markay 41 usbuuc gaarto ilaa 42 usbuuc ayay yiraahdaan soo xaro induction ay lagu sameeynayaa ama ay jal ha u isticmaalaan ama method kale u isticmaalaan sidoo kale waa waajib hooyada hadii biyaha dilaacaan in istaak lagu cararo qofka ku qasban waa asagana induction-ka in la process la mariyo oo hooyada ayuu isku maamulinaysa sariirkeeda guri iska joogto wax sameynaysa ayaa waxa dhacday marka qaar in ay biyaha dilaacaan markaas way ku qasban tahay in la xareeyo induction oo maro sidoo kale sidoo hore soo sheegay hooyadu haday diabetic ama macaanka ay qabto ama sokorta 38 isbuuc wixii ka dambeeyo badana
soo xaro ayaa yiraahdaa si ilmaha lagu ilmaha qaar khatar ama ku imaan karta lagu badbaadiyo wala xareeya waxa kaloo jirto haddii cudurrada sida kidney infection ama waxyaalaha la mid ah kale qof waliba personal condition ayaa jiro qof waliba xaalado khaas ah ku sugan yahay dhakhtarka ay consult ku sameeyaan waxyaalo risk hadii jiraan oo ilmaha risk u keeni karo dhakhtarka asaga dhahayo macnaha ilaa intaas usbuuc kadib waa lagu sameeyay induction waxa kaloo jirto oo runtii laakiin inta aan common ku ahayn balse common ah middle eastiga sida wadamada Qatar Dubai kalanto ina ayagu dalbadaan gabdhaha for some reasons in macnaha la qalabo oo cesarean lagu sameeyo halka xitaa way ka dhacdaa UK sida maqlay gabdhaha qaar waxay ku leeyihiin anigu mar raba inaan xogay hoos mataqaana ka yaro doqoonka iga carar marka arintaas mamaaligta Sacuudi Arabta ay caan ku ahayd mamaaligta Qatar ama Dubai kale ku leeyihiin anu haddaan dalay ninku mataqaana mid kale guursanaya gatay marka leeyma qala hoos kama normal uma dhalay waa in lay qalo si xogay anu qanciyo mataqaana soo jawaan arin runtii risk keeni karto oo ah mar haddii qofka mar labaad la qalo mar saddexaad la qalo inay keento marka dambe in la yiraahdo adigu waxda ma dhali karto wadanka kulay la wadabo middle east waa arrin common oo gabdhaha ayaga diidaba haddii mar ur yeeshaan waxay ku leeyihiin waa in la qalo ilaa mar ama janiska aan fiirinaya ama some reasons ay dalbato induction ka marka haddaan wax yar briefly ka taabto habka u sameeyaan hooyadu markii ay aday kulay waqtiga soo dhawaada 4 weeks ay garato waxay sameeyaan wax la yiraahdo membrane sweeping wax la yiraahdo dhakhtar kulay examination anigu de waa hay'adaha qaar hadar af Soomaaliya macquul inaan ku haynin laakiin examination in general hooyada dhakhtarka ama midwife ayaa ku sameeynayo kulay technique kamid waaye membrane sweeping waxay yiraahdaan xaway inay cervix ka fiiriyaan hooyada oo ay fiiriyaan anu inta injisa hooyada furan tahay inuu diyaar garooyo dilation uu jiro oo hooyada diyaar tahay ogaadane hooyada hadday socoto oo socodkeeda extra badan yahay waxa xaqiiqo ee dilation-keeda janiska ugu badan ay heli kartaa 90% hadday socoto waxay ka saacidaysaa in marmar ka dambayso inuu canuga dago oo shape right shape ku yimaado ayadana injisiyada ayadoo daawana la siin waxba la siin inuu normal u dhasho Allah subhanahu wa ta'ala uu gargaaro oo u fududeeyo marka taas wuxuu ku iman kartaa inuu qofka socdo sawjkana waajib ka saaran waayo qofkii markii ay cuslaato inuu saacido oo garab istaago sababtoo ah waa marka loo baahan yahay kulli muhiimad waxa la siiyay waxyaalaha qaadka caalamada laakiin waxa ogaataan ehelku waa muhiim jiddan dhibaatada ay marto waxa ku soo noqon ogaada kulli waa rag odayaasha wuxuu sheegay waxyaalaha ay sameeyaan markii ay rabaan inay dhaliyaan oo ay yani induction oo laborka oo qasabka xakamida inay biyaha dilaaciyaan kale si ay biyaha ibide ama ay yiraahdaan artificial rupture of the membranes ama ay yiraahdaan breaking the water in fact xanuunka ama uteruska inuu sameeyo contraction oo yani qofkii foosh ay soo degdegta ayaa arrintan loo sameeyay dhibaato kalena way leedahay haddii ay fooshi sidii loogu talagalay noqon weyso canuga biyihii oo ku dhex dabaalanayay hadduu waayo waxa uu dhuuq waxay noqon doonaan infection iyo hooyadii hoos ka yara furan oo dilation u jiro canugana in bacterial infection ila hooyada biqadrati الرحمن waxa soo bacteria aad u tirabadan ay jiraan around low track ama hoose taasina ay keenta canugu inuu dhuuqo waxaasi ee ku keenta canugu inuu dhinto way dhici kartaa marka biyaha la dilaaciyo waa u soo taagnaa qoysas badan oo Soomaali lagu sameeyay ilaahay ku badbaadiyay marmarka qaar risk laakiin inta badan medically way diidaan hadda bacana way sadacdaa oo way sameeyaan waa technique ay isticmaalaan ay kamid tahay oo ma taqaana riski ay keeni karto xakmada hadii biyaha la dilaaciyo fooshina ay si raba u kullaan weyso canugi in xogaay ay dhibaato xagga bacterial infection ku yimaado arrinta kale ay sameeyaan oo soo dadijiyaan waxa kamid ah oxytocin drips waxay yiraahdaan hormone herbadiro hormone inay filament ugu daraan ay yani contraction si u ziyaado mataqaana qofka oo foosh oo qabato u soo dadijiso mataqaana waa technique ay isticmaalaan mataqaana common ku waa kulli way badiyeen technique-yada ay u isticmaalaan marka waa intaas waa inta ka cabdi insha Allah ka sheegay waxa kale oo jirto xilliga ay foosho soo cuslaato waxay isticmaalaan anti painkillers ay yiraahdaan ama anti pain ogaada waxa kamid ah waxay la isticmaalaan epidural oo adeysiyaan Intonox ama gaaska afka u galiyaan am betadine iyo cirbada kala badan waxa laakiin dhibaatada jirta waa gaaska qofka markuu afka u jiraad jeeraal wuxuu ka dhigaa qofka xogaa inuu drowsy inuu
oo tabar u seen lahayn ama uusan xitaa miirka uu ka maqan yahay malaysan oo qof cabsan camal iyo dad common ogtiinba marka waxa aad u fiican arrimaha anta bayn waleeyahay ay xanuun fooshu wayna dhib badan tahay hooyadu waxa fiican marka hore inay waxyaalaha saacid waxa kamid inay fit tahay ama ay xawaayo quwo ay leedahay hooyadii oo ay exercise iyo wax badan soo sameynayso socod badan ay sameynayso xilliga marka ay fuulaysan mataqaana iyadoo diyaarsan xawaayo oo guriga in badan ku foolato diyaar garowdi in istaak la geeyo mataqaana kullee hadii xanuunka zaad ugu bato contraction kamar oo dilation ilaa 8 u gaaro hooyadu ma dul qaadan kama kaasoo kala cirbad ama betadine ama wixii lamid inay siiyaan laakiin xawaayo gas marka uu marka qaar waxay keentaa in ay qofka tabar dhigo uu ilmaha xitaa ay bulsho garan karaan sometimes uu kana ciladaha uu leeyahay kamid ah xawaayo inuu qof xawaayo wax suuxsan camal noqdo hadii la hadla xitaa uusan hebla dilira ama la hadla uusan ku ogaan xitaa qof ujeedo wax dhacdhaca ama qof cabsan camal u yahay marka walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynaa hadalkii mataqaana ku khulaasayna as community waxyaalaha waajibka nagu ah oo ay kamid yihiin dadku accurate accounting of due date inay iska hubsadaan akhtarka haddaad tiraahdo annagu muslimnahay saasi saanaan samaynaa due date-ka gabadha ay kala hadasho zawjka ula socdo ayagu waa flexible had iyo jeer loo sharaxta la yiraahdo annagu waxaan adika xilliga period ku jiro wixii la sameynaa ma sameyn annaga xilligaas ka jar due date-ka accurate hooyada dabcan xilliga ilmaha calooshada galeen haddii de iskaan xitaa la saaro waa wax la qiyaas karo fahmi kartaa iyadana loo ogaan karo waa arinta loo baahan yahay advice ahaan iyo talo ahaan dhakhtarka in loo sheego lagana hadlo loogana gudbi karo arrimaha keeni karo cesareanka in zawjku oo u naxariisto dhaqaaleeyana zawjada marka ay xilliga ay ku jirto waqtigan adag ee ximliga uurka iyo xilliga ku soo fadlahay